هب النسيم ترنجا ودلالا والعطر فاح عبيره وتعالى وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في جنباته يتلالى هب النسيم ترنجا ودلالا والعطر فاح عبيره وتعالى وقف الطيور الأيك ترقب مركزا النور في جنباته يتلالى يا مركز الأخيار هاك قصائدي حبرتها لأنال منك وصالا سال القريض على اليراع فأمطرت سحب المشاعر وابلا هطالا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، كلمة عنوان كذا أو محاضرة عنوان كذا إن شاء الله تعالى وحوي تأملات في قصة ابني آدم. قصة كم إذا قصوين كقرآن كوش شيء oo ku saabsan labadii wiil ee uu dhalay nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam. qisadaas iyo duruusta ku jirta in aan u fiirsanno oo aan isdul taagno. qur-aanka kariimka ah asaaliibta iyo qababka uu u gudbiyo waxa uu doonayo inuu dadka gaadhsiiyo waxaa ka mida usluubka la yidhaahdo usluubul qasas, yacni usluubka qisooyinka. dhacday oo taariikhda soo martay ayuu qur-aanku sheegayaa. waa sheeko marka sheekadaasi siday u dhacday marka lagu sheegayo oo lagaaga warramayo yacni way macaan tahay, naftuna way jeceshahay inay dhegaysato. laakiin maqsuudku ma aha uun sida qisooyinka kaleba laysaga faakihaysto. isaga faakihaysi ma aha, balse qur-aanka qisooyinkiisu dhammaantood duruus bay xambaarsan yihiin. cibar baa laga qaadanaya, sida allah tabaaraka wa tacaala uu qur-aanka kariimka uu yidhi laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab. qisooyinka ambiyada iyo rususha iyo ummadaha sheekooyinka laydinka sheekaynayo cibar baa ku jira, duruus dadka anfacaysa ayaa ku jirta
waxaase duruusta faa'iideysanaya dadka caqliyadoodu fayow yihiin dadkaasaa faa'iidada la baxaya oo adduunkooda iyo aakhiradooda uga faa'iideysanaya آيات كلا وكالله يقول تبارك وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون قصوينك وقل قصود بالي وشي قصوينك ومضى هذا قصوينك لعدوينك حوادث وقشيك وحو أدونك سوء هانشري وحي الله صومري وحي نباتك هيني وحي وناك هيني وحي أدونك سوءها dhacdooyinkii qaar ka mida uga waran baa leeyahay si ay u waana qaataano qisooyinka markay taariikhdooda akhriyaan oo ay fahmaan marka kadibna ay waana uga qaataan iyo wax noloshooda anfaca qisooyinka quraanku marka waa qayb dhan oo aad u fara badan oo ummadihii hore laga warramay oo qisadii aadam iyo ibliis dhex martay baa laga warramay oo ummadihii asbaabtii lagu halaagay iyo wixii badbaaday asbaabtay ku badbaadeen ayaa laga warramay waxaasi waxay ku siinaysaa wax la yiraahdo sunanullahi fil kawn allah tabaaraka wa taala waxa jira caadooyin iyo turuq iyo sunan uu kawnkan ku dhaqo kawnkan uu ku maamulo sunankaas waxa laga fahmaa marka taariikhdii adduunka daba gasho iyo sidii wax ahaan jireen iyo say wax u dhici jireen iyo asbaabta aad daraasayso ayaa waxaad heli kartaa maanta dhacdooyinka dhacaya iyo say wax u jiraan inaad tafsiir u hesho tafsiirkii oo iska cad baa marka hortaada imaanaya lianna sunankii iyo qawaacidii caamka ahaa ee kownkan lagu maamulayay ayaad fahmaysaa taa daraaddeed baa marka quraanka qasaskiisu ay ugu jirtaa duruus aad iyo aad muhiim u ah laakiin wama yacqiluha illa alcaalimuun dad wax garanaya fahma oo qasaska iyo maqsahooda iyo maqsuudkooda iyo macnaha ay leeyihiin iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay waxa fahma dad caalimiin ah oo wax garanaya qisadani marka waxay ka mid tahay qisooyinka quraanku uu keenay وانا قصة محو هاي كوسابسن لبدي ويل ودلي آدم الله تبارك وتعالى قصة مركو هرسيدة يقول على القرآن كو الشيء بان دول مرينا كدبنا وحن اسدول تاجينا دروسها هي عبر كاللقى فائدة سنة قصة أيضا نوشن إنك إن أنفعي خاصة وحبا وما أنت دعدوين إن هيستحرير لله هي قصة كدح موقدة الله تبارك وتعالى وحا النبي سكوير صلوات ربي وسلام عليه واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون قصة واتا وقصة قابا وقرآن كسي أرورسا وأتل مامي الله تبارك وتعالى النبي نوحي كويري وحادتك كد الأخردا وأمد هذا أقصى صوتا أشيكتا لبدي آدم رلي
يعني آدم لبدي سيويل وركودي وشك بالي dhacdadu waxay ku saabsan tahay laba wiil oo aadam dhalay dhacdadaasi labada aadam dhalay ee wiilasha dhex martay ummadaada u sheeg garo oo marka dhacdadu taariikhday dhacayso waa aadam markii dhulka la keenay oo caruurta uu dhalay xilliga way caruurtiisii sida jumhuurtu ay qabaan laba wiil oo asagu uu dhalay bay ahaayeen sida sawaabka ظاهرك القرآن كان كم مغضى مرك قصة داس لبدا ويل دحمرتي وحال يركض الآخري ولي بقى أيضا ربعه بالحق يعني قصته الله بقى سوق قد بنا تبارك وتعالى الله مركو سوق قد بنا يشيق ينا أيضا عد وصيء العضيئة وحبال قدرين والله بونبونين وحبال قدمين oo sideedii u sheeg balay bil haqq wa macnahaas dhacdada iyada sheegideeda uu nabigu say u dhacday u sheegayo waa calam min a'laami nubuwatihi nabiga salawaatu rabbi wa salaam alayhi nabinimadiisi astaan ku tusaysa way inuu nabi ah maxay qisadani waxay ku soo aroortay sidoo kale tawreed iyo injiil ba way ku timid labada wiil ee aadam dhalay qisadoodu tawreed iyo injiil bay ku timid oo yaani yahuudna way akhrinayeen limankii nasaarada ahay injiil loo soo dajiyayna way akhrinayeen ilaa ay hadana kutubtay hayaan way ku taalaa nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaam alayhi arab dhexdeeda kama bixin jasiiratul arab ma dhaafin noloshiis allahumma qisayro marbu sham aaday la yiraahdo mooyee aslahaan sida badan kama uusan bixin waxna ma akhrin jirin waxna ma qori jirin taariikhna ma aqoon jirin qisadan siday u dhacday aadam markii dhulka la keenay qisa dhacday siday u dhacday inuu u sheego macnaheedu waxa weeye allah tabaaraka wa tacaala xogogaalka baa u soo sheegay si kale uu ku ogaan karo ma jirto taasina waxay ku tusaysaa in allah tabaaraka wa tacaala xaqiisa waxyi uga iimaan jiray oo looga soo warrami jiray oo waxa uu la yimid oo xaq yahay hadii uu kutubta akhrin jiray ama wuxuu kala socday taariikhda shaki baa imaan lahayo waxa la dhihi lahaa hadii kutubtu akhriyay buu ka soo akhriyay oo markaasuu meesha ku qortay laakiin waxna ma qori jirin waxna ma akhrin jirin isagoo sidaas wuxuu keenay qisada dhacdada waqtiga dhacday siday u dhacday buu hadana uga waramaya salawaatu rabbi wa salaam alayhi waxay ku tusaysaa marka inuu nabi ilaahay oo loo soo waramay qisada wuxuu rabbi yiri tabaaraka wa tacaala marka labada wiil qisadooda iyadoo sideedii u sheeg dadka id qarraba qurbanan dhacdadu waa sidan marka labada wiil qurbaan bay ilaahay ugu dhawaadeen qurbaanka waxa la yiraahdaa shay sadaqa ah oo ilaahay loogu dhawaado oo wax kaga rabto qurbaankaas wuxuu ahaa lama sheegin sababtiisana lama sheegin waan ka hadli doonaa laakiin quraanku wuxuu ku gaabsaday qurbaan bay labadooduba gudbisteen oo ilaahay ugu dhawaadeen labada wiil magacyadooda lama sheegin laakiin waxa la sheegay in aadam wiilashiisii baa leeyahay qurbaankii markay gudbisteen الله تبارك وتعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر مدكود با قربانكي سيلا أقبلي كي لبادنا قربانكي ولغسو ديدي لغم يهلين حيث هذا المفسرين تو أمضيه هوري وحي أهان شيرين مركو روح قربان إلهي أقول نوادو قربانكي سئن لا أقبلي وحا أستان وأهان شيرتي ضبا إيمانيا markaasuu qurbaankiisi ilaahay ugu dhawaaday buu la tagayaa oo qaadanaya taasi waxay calaamad u tahay in qurbaankii laga aqbalay kii qurbaankiisa ilaahay ugu dhawaaday aan dab u imaaninoo meeshaba aan laga qaadinna waxay astaan u tahay inaan waxba laga aqbalin taasi waxa weey waa sharaxa culimada ay ku darayaan laakiin quraanku wuxuu uu yiri in mid baa qurbaankiisa la aqbalay midna qurbaankiisa lama aqbalin kii qurbaankiisa la aqbalay mooyaane kii aan qurbaankiisa la soo diiday oo waxba laga aqbalay ayaa marka wuxuu yiri kii kale ku yiri la aqtulannaka wala inaan ku dilib in noolaan mays
walla inaan ku diliyon kaa takhallusi kii markii loo hanjabay uu jawaabo wuxuu yidhi innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin maxaad igu dili haddii ay tahay waxaad ii dilayso taadii baa la aqbalay taydiina waa la soo diiday hadda aqbalka ilaahay baa bixiya allana wuxuu wax ku aqbalaa alla ka cabsi dadka muttaqiinta kaliya buu alla wax ka aqbalaa marka aqbalka ilaahay aqbalay shayga oo qurbaankaygii uu aqbalay niyahu dembi aan ku mudanayo dil ma aha ma aha dembi ma aha ilaahay baa aqbal kale asbaab buuna aqbal ku leeyahay ilaahay baa kaygii aqbalay kaagiina soo diiday marka ma sabab aad igu dishaa sabab aan dil ku mudnahay ma aha dembi aan galayna ma aha innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin muusan intaa ku daynina wuxuu ku yidhi lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibaasitin yadiya ilayka liaqtulak wuxuu yidhi haddii aad gacanta ii soo fidiso gacantaada si aad ii disho ood ii gacan qaaddo anigu gacantayda xaggaaga u soo fidin maayo si aan kuu dilo kula dagaalami maayo kulana ficiltami maayo iskana kaa celin maayo marnaba gacan kuu qaadi maayo oo maxay tahay sababtu maxay tahay aan isaga kaa celinayn miyaan kaa baqayaa ma kaa tabar yara culimada qaarkood waxay tilmaamaan kan la dilayaa xoog badnaa marka niyow kaama xoog yari waa iska kaa celin karaa kaamana baqayo laakiin hal qodob baan gacan aanan kugu qaadayn muxuu yahay innii akhaafu allaha rabba alcaalamiin waxaan ka baqayaa allaha kownkan oo dhan iska leh ee maamula ee gacanta ku haya kaasaan ka baqaya baqdintaa qalbigayga ku jirteen alla ka baqayo baa ii diidaysa inaan gacan kuu qaado si aan kuu dilo ama iska kaa celiyo waan iska kaa celin karaa laakiin alla ka cabsi baan isaga kaa celinay sidaasuu ku yidhi qodob kale weeye innii uriidu an tabuu'a biithmii wa ithmika fatakuuna min asxaabi innaar waxaa kaloon doonayaa buu yidhi in aad la laabato dembigayga iyo kaagaba oo markaa aad noqoto dadka naarta gelaya mid ka mid ah sidaasina waa dadka daalimiinta ah ee gardarrada sameeya ee xadgudubka sameeya abaalkoodu waa inay naarta galaan niyow laba hadday isu kay qabato waa inaan intaan kuu gacan qaada naar galo iyo inaad i disho intaan dembi aan naar ku galo la imaan lahaa waxaan door bidayaa inaad i disho adigu aad xambaarsato kaygiina aad qaadato kaagana aad qaadato sidaana aad naar ku gasho naar iyo dil wax laysku doorsan kara ma aha intaan naar geli lahaa oo intaan ku dilo naar ku geli lahaa alilaahi waxaa dhaama i dilo iga takhallus saasuu ku yidhi intaasoo dhan yacni wuxuu u sharxayaa warniyow haydilin sabab aad igu disho ma jirto waa waaninaya waa caqli celinaya laakiin waxba ma anficin waxna kumuusan qaadan allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi fatawacat lahu nafsuhu qatla akhiihi naftiisu waxay u sahashay naftiisu waxay u qurxisay naftiisu waxay ku dhiirigelisay inuu walaalkii dilo faqatalahu waa dilay waa walaalkii oo hooyadii iyo aabbihii ay dhaleen waa isku hooyo isku aabbo waay naftiisaa u qurxisay ku dhiirigelisay wuu ka helay waana dilay fa asbaxa min alkhaasiriin buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala mar hadduu dilayna kuwa khasaaray buu ka mid noqday markuu dilay oo walaalkii uu ka takhallusay qur-aanka daahirkiisa waxaa ka muuqda wuxuu garan waayey farsamadii uu walaalkii ku asturi lahaa ilan dhacdadu waa dilkii ugu horreeyey oo ibni aadam la dilo ama taqriiban sida ka muuqata xataa ibni aadam uu dhinto oo dhulka korkiisa ku dhinto dhacdadii ugu horreysa waay si u yeelu garan waayo marka wixii waa hilibkiisii waa walaalkii waa cawro oo waa meyd seed yeeshaa farsamo ma horreyninoo waxuu horey u yaqaanay ma ah dhulka ku asturoo qari waa garan waaye sirrinta qaarkood waxay leeyihiin mudduu wadayo walaalkii meydkiisa uu yacni waxa weeyaan uu isagu uun maamulahayo kolba qaadayo meel geynahayo si uu yeelo lahaa
الله تبارك وتعالى ماشى إيضا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. الله تبارك وتعالى مركا وحو أصدري تكي نلك فارفاريا أما نلك فاقيا سيء أتصو ولالكي عوردي سسيدو أستور لها أقرن لها سوءة أخيه باليريو ميتك وعورو أوكالي sida cawrada in loo asturo ay u baahan tahay buu meydkuna in la asturo u baahan yahay marka walaalkii oo cawro meyd ah asturkiisa iyo siduu ku qarin lahaa u aasi lahaa tuke baraya baa ilaahay tabaaraka wa tacaala u soo diray tukihii dhulku faarfaaray meesha waxay mufassiriintu bixinayaan walow quraanku uusan sheegin oo tuka dilay uusan lahayn haddana waxay leeyihiin laba tuka ayaa agtiisa ku dagaalamay labadii tukaa mid baa midkiid kala dilay markuu dilay oo nafta ka qaadayna intuu dhulka qoday oo faagay ayuu tukihii uu dilay meydka ahaa bakhtiga ahaa ayuu geliyay markaasoo carrada ku rogay ina aadam waa fiirsanaya waa daawanaya meeshaasuu darsi ka qaatay marka aleelaha shimbirtan ba hadday is aastay walaalkaa aad ku kadeedan tahay meydkiisa maad asturtidood dhulka iska gelis meeshaasaa marka wuxuu yidhi yaa waylata acajastu an akuuna mila hada alguraabi fa uwaariya saw'ata akhii fa asbaxa min annaadimiin shallaytadayde hoog iyo halaag igu dhacye miyaan ka caajisay ma waxaan kari waaye waay ma waxaan kari waayey inaan walaalkay asturo oo sida tukahaasoo kaleeto aan noqdo xataa tuke ma ka liitay waay حتى تك وحو قرتي بان قرن واحد وماشي يراهدان عدم العلم عجز بينها عجزك كليا لما يراهدو شيء مركاد أود أهان قبان كري ويدو كليا عجز لما يراهد عجزك واحد يراهد حضادا أقونتي سيلها إن عاجز باتا ولها أودي وحوقي ونولك كوقدي لها ولالكي كو أسطوري لها ولها فعلا لكن وحا كمقنا علمي يجيتكو أمري لها يأقونتي باكا مقنيت aqoonta marka la'aanteedu waa nooc cajisiga kamid ah wuxuu leeyahay marka ma waxaan kari waayay inaan tukahan oo kala noqdo walaalkay aan asturo oo aan qariyo walaalkay cawradiis Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yiri fa asbaha min an-naadimin wuxuu noqday kuwa qoomamooda mid kamid uu noqday qoomamuu noqday walaalkii dilkiisii iyo wixii uu ka dhaxlay iyo wixii ka dhashay nin ka qoomamoodu noqday تقريبا معناه هذا معها ندامة دي توبض أحد معه لكن وندامة كسابسن وحن أهين هديو فلك يفعلك يوحي السمية كقوم مول لها توبض بيبقى نقول الله هيد حي النبي صلى الله عليه وسلم وحكسه إنه يري الندامة توبة الندامة توبة هدي الدم بيجا إنتاج جشو كقوم موت قوم موت صاب التوبة أبا تيسو مركا تاكو ما صابسنين الله تبارك وتعالى مركا وحيل oo qisada markuu saa inoogu sheegay dhacdada iyo qisada darteed buur ayaa waxaanu reer bani Israa'iil ku waajibinay ruuxii nafdila aan nafdilin fasaadna aan dhulka ku samaynin wuxuu la mid yahay dadkoo dhan ruux dilay ruuxii naf nooleeya wuxuu la mid yahay dadkoo dhan ruux nooleeyay reer bani Israa'iil sidaasaan ku laaziminay inaan ku laaziminana waxa keenay dhacdada dilka ah ee ina aadan walaalkii dilay Allah tabaaraka wa tacaala qisada marka si kooban oo qaabkaas ayuu horta quraanku u sheegay meel dhowr ah oo qisada kamida iyo duruusteedan doonaynaa marka wax yar inaan isdul taagno waa koow qisada horta waxa ku soo arooray inta quraanku uu sheegay oo kooban waa inta maqsuudka ah muhiimadda iyo darsiga loogu talagalay inay qisadu bixisana ku filan muhiimadda way ku filanta maqsuudkana way ku filanta dhacdada laakiin kutubta tafsiirka markaad u laabato waxaad ka helaysaa qisas kale oo fara badan oo ku saabsan qisadan iyo qaabkay u dhacday tafaasiil fara badan faahfaahin fara badan tafaasiishaasi inta quraanku uu sheegay wixii ka siyaadsan
riwaayaadka ay ku timid waa riwaayaadka loo yaqaano الروايات الإسرائيلية روايات إسرائيلية waxa la yiraahdaa waa sheekooyinka ku yimid kutubtii reer bani Israa'iil Tawreed iyo Injiil sheekooyinka ku yimid ee laga soo qaatay ee aan Qur'aanka iyo sunnada saxiixa ana ayna sheegin kuwaas waxa la yiraahdaa الروايات الإسرائيلية riwaayaadka Israa'iiliga ah kutubta tafsiirka aad bay ugu badan tahay nabigeennana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi riwaayaadka noocaas oo kale ah hana beeninina hana rumaynina waxaa dhici karta inay Tawreed si sax ah ay ku timid oo macluumadaasi ay Tawreed ku saxsanta xagga rabbina ka soo degtay haddaad tiraahdo marka ma jirtee waa been wax ilaahay xaggiisa ka yimid baad beenin haddaad tiraahdo waa sax oo rumaysana waxa dhici karta inay tahay culimadii reer bani Israa'iil Tawreed iyo Injiil waxyaalahay ku siyaadiyeen inay kamid tahay oo ina waxba ka jirin baa dhici karta marka iyadoo waxba ka jirin aad rumaysana been baad rumayso ilaahay u tiiris sidaas daraadeed la tusaddiquhum wala tukadhibuhum nabi sallallahu alayhi wasallam warka ay sheegayaan riwaayaadkaasi aan loo haynin wax rumeeyay iyo wax beeniye midna hana ku beeninina hana ka rumaysanina laakiin waxa tiraahdaa ilaahay baan rumaynay wuxuu soo dajiyayna waan rumaynay inta kaga baxa hadduu wixii ilaahay soo dajiyay uu yahayna duuduub baad u qaadatay wuxuusan ilaahay soo dajinay ilaahay ay korka ka saareen oo masabideen hadduu yahayna dee waaba diidayba wax ilaahay soo dajiyay anigu rumeey dee wuxuu soo dajinayna ilaahay ma soo dajin bas inta kaga baxa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam qisadan marka wixii inta dheer quraanku uu sheegay wax xadiisa oo cadaynaya oo tafaasiil bixinaya oo faahfaahin inta ka siyaasan sheegaya ma jiro Allahumma xadiiska iimaan doono ina aadamka walaalkii dilay uquubada ilaahay uu mariyay iyo dambigiisu intuu dhanaa xadiiska tilmaami dooneen u tagi doona mooyaan waxa kamida midalan oo Israa'iiliyaadka soo galaya labadaas wiile aadam uu dhalay magacyadooda kutubta qaar kood waxay qoreen in midna la yiraahdo qaabiil oo ka wax dilay ah iyo haabiil oo kala dilay ah magacyadaasi inay sidaa yihiin qisaska Israa'iiliga bay ku timid wax nas ma leh sidaas daraadeed mana rumaysanayno mana beeninayno waxa kamida midalan kutubta tafsiirka iyo riwaayadka Israa'iiliga waxay tilmaameen oo culimadii salafka qaar kamid laga soo guurinay waxay sheegayaan qisadu waxay ku dhacday bay leeyihiin xilligaas ibn aadamku waa yaraa oo de hal qoys baaba joogayba dhul korkiisa halka qoysay laga farcamay oo qoyskii nabi aadam ah aadam iyo xaaskiisii iyo carruurtiisa joogay dad marka farabadan oo kala fog oo kala guursado oo meesha ma joogo waa hal qoys inay kala dhalaan waa la rabaa oo intay isguursadaan oo aqal samaystaan oo tarmaan oo bini aadamka jiritaankiisii tarankiisii la ilaaliyo waxay leeyihiin marka waxa jirtay xaawo waxay dhali jirtay markay dhashaba laba ilmood wiil iyo gabadh mataana abay dhali jirtay wiil iyo gabadh mataana abay dhali jirtay gabadha wiilkan mataanta la ah waxa loo guurinayaa wiilka kale gabadha wiilka mataanta la ana waxa loo guurinayaa wiilkan kale loo guurinaya labadii caloosha wada jiifsatayba waa la kala bedelayaa gabadhana wiilkaas la siin wiilkana gabadhana la siin sidaas ay isu guursan jireen oo ibn aadamku ku tarmay ibn aadamku markuu tarmay oo batayna shariicadu waa tan maxaarimta dhigtay dadka aadan guursan karin ee xigtadaada ee dumarka ee aadan geyin ee marka la kala fogeeyay laakiin marka hore wax la kala fogeeyay ma jiraba meesha marka waxay leeyihiin waxa jiray ninkan la yiraahdo qaabiil oo gacan ku dhiiglahe ninka dilay gabadha mataantiisa ahayd waxay ahayd gabadh aad u quruxsan haabiil oo ninka la dili doona ana gabadha mataantiisa waxay ahayd gabadh laga qurux badan yahay sidaa markay tahay waxay arintu keenaysaa haabiil inuu guursado gabadha quruxsan qaabiilna inuu guursado gabadha laga qurux badan yahay
sidaas markay arrintu ahayd qaabiil waa soo istaago wuxuu yiri gabadha aniga uurka ila seexatay walaashay ah ee mataantayda ah ee quruxsan ana guursanay warta seed ku guursanin nidaamku sida ma ahayn tanaad leedahay adiga tan guursamaya ma guursanay tanaan rabaa tanaa xigta tanaan quruxsan qisooyinka qaarkood waxay leeyihiin aadan baa soo dhaxgalayo markaasuu wuxuu ku yiri war qaabiil waad khaldan tahay waadna gar daran tahay gabadhan malihide tan guurso yiri qaabiil aadamna warkiisa waa diiday duqiya aabahood warkoodina waa diiday maya wuxuu yiri tan aniga i dhaafi mayso tan meel aadi mayso markaas aadam wuxuu soo jeediyay nabi aadam wasay qisadu leedahay waayahay haday aad sidaas aad muxuu ahay aad rabto qurbaan samaysto oo nin walba qurbaan ha sameeyo ilaahay qurbaan ha u gudbiyo ha ugu dhawaado ninkii qurbaankiisa la aqbalana gabadha ha guursado waayahay sidaasuu qurbaanku ku yimid qaabiilna qurbaan buu gudbistay oo qurbaankiisu beeraley buu ahaa bay dhahaayeen waxoogaa beer ah oo muxuu ahaay dalag soo go'ay ah oo laga fiican yahay ayuu ilaahay ugu dhawaaday ninka la yiraahdo haabiilna xoolo dhaqatu ahaayeen neef aad u qiimo badan buu qurbaan ka dhigto ilaahay ugu dhawaaday haabiil la aqbal wixiisi qaabiilna waa la soo diiday meeshaasay horta qisada sababkeedu sidaas uu ahaayo gabadh baa la isku qabsaday dilkana gabadh baa keentay sababtu wax weeyaan gabadhaas la isku mandhaaf qisada tafaasiisha bixinaysaay iyo qaybaheedaas uu san quraanku tilmaamin waa qissa israa'iiliya waa qisada israa'iiliga waa tanada soo sheegay way dhici kartaa inay saa u jirto wayna dhici kartaa inay waxba ka jirin way suroobi kartaa oo reer bani israa'iil culimadoodu ay warka ku dareenna waa dhici kartaa oo tawreedii injiil ayagu ay ku siyaadiyeenna waa dhici kartaa inay saa wax u jiraan oo saa wax u dhacdayna way dhici kartaa mana beenin karno mana rumayn karno inta waxaan u tilmaamayaa in aan kala garanno maxaa sugan maxaanse sugnayn naska quraanku intuu tilmaamay tafaasiisha ka siyaasan oo ay macaanida hadda aan tilmaamay la mid tahay yaani wax weeyaan ma laha wax daliila ma laha taa inta markaan kaga gudbo duruusta ay qisadu bixinayso waxa kamid ah ee laga faa'iideysanayo khatarta uu leeyahay xasadka iyo baqigu xasadka khatartiisa iyo baqiga oo bimaana gardarrada ah ayadana khatarta uu ruuxa ku leeyahay aakhiradiisa iyo adduunkiisa لأن السبب تكون بحسي إنه ننكني ولالكي ديلو ما حيته قرآنكم حولي فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر مدبع لا أقبل قربان كيسي كي كلنا قربان كيسي لما أقبلين قربان كان لا أقبل كيسي نلسود دي ayaa wuxuu noqday sababta ku bixisay inuu walaalkii dilo meeshaas marka waxa weey nicmo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu cid kala siiyay iyo doorasho uu doortay iyo sad adigana uu ka qadiyay isagana ku khaas yeelay yaa ku dhibay sooma waxa ku dhibay oo gacan qaadka ka keenay oo walaalka inaad disho ku gaarsiiyay wax kale ma ahe waxaad u quuri weyday inuu isagana ilaahay qurbaankiisi aqbalay kaagina la soo diiday taasi marka waa mas'alada xasadka la yiraahdo xasadkiina maxaa ka dhashay baqi baa ka dhashay gardarro iyo dulmi iyo xadgudub iyo dil baa ka dhashay midda iyada marka waxay tilmaamaysaa xasadka iyo khatarta u leeyahay quraankuna meelo fara badan buu ku tilmaamay cunsurka xasadka ah dhibka uu leeyahay adduunyo aakhira adduunka dhibku keenay fiiriyo walaalkii buu dilay nin walaalkii dilayna ma faa'iidin walaalkiisii garab taagna ee adduunka wax la wada qabsan lahaayeen ee wehelka u ahaa ayuu ku bixiyay inuu ka takhaluso waa mid labaade in uu rafaado oo meydka walaalkii xambaarsanaado
oo qoomamo iyo muxuu ahaay walbahaar iyo niyad xumi ku noolaado waxa dhaxal siiyay xasadka midhihiisii waa sida rabbi tabaaraka wa tacaala tilmaamay inuu aakhira khasaaro oo saan u tagi doono uu naarta galo dadka ugu dambi weyn ibni aadamkana uu ka mid noqdo waxa dhaxal siiyay waa xasadka saas daraadeed ba xasadku waa shar furihiisa waa bal shar kaliya mehe ashraar fara badan buu furo u yahay intaasoo shar buu furo u yahay marba haddaad ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa ku qanci weydo oo addoomadaa wuxuu ilaahay u qaybiyey aad ka xanaaqdo oo tidhaad hebel maxaa kursiga loo siiyey anigana kursiga la iga qadiyey hebel maxaa xoolo loo siiyey anigana la ii siin waay hebel maxaa magaca loo siiyey anigana la ii siin waay hebel muxuu wax iila dheeriyey oo aniga la iga qadiyey mar haddaad baab kaa gasho muxaqaq way inaad khasaarayso laanna xaasidku ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa iyo qaybtiisa iyo maamulkiisu ka horjeedaa waa mashquulsan yahay marka wuxuu ku mashquulsan yahay kaana isagoo lahoo kale ilaahu maxaa saa u yeeshay oo hebel maxaad waxaa u siisay oo hebel maxaad saa uga dhigtay oo hebel maxaad kan uga dhigtay oo hebel maxaad aniga maxaad iiga dhigi weyday oo ma ilaahay baad la xisaabtamay adigu maxaa ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa iyo maamulkiisa maadaa la maamula xasadku marka waxa waa jariima aad iyo aad u weyn oo jaraa'im fara badan dhasha waa quraanka kariimka uu fiirsada qisada markuu ka waramaya aadam nabiyullaahi aadam calayhi wa ala nabiyina salaatu wassalaam iyo ibliis marka laga waramayo wixii ku bixiyay ibliis aadam u sujuud markii la yiri inuu diido oo ka garaabi waayo amarka rabbi oo qaadan waayo laba qodob baa keenay qodobka koobaad isla weynan iyo iskibrin xogaa qadar uusan joogin buu isgaadhsiiyey midda labaadna aadam buu wuxuu u quuri waayey fadliga alla siiyey tabaaraka wa tacaala xasadkii marka aadam uu xastay oo u quuri waayey ilaahay tabaaraka wa tacaala wanaagga uu siiyey fadliga uu siiyey ayaa wuxuu ku kallifay inuu diido sujuudda hadduu sujuuddii diidana maxaa ku dhacay lacnad ilaa qiyaamada la soconaysa oo ilaa aakhira la soconaysa ilaa ay cadaabka geliso shar oo dhan inuu waayeeliyo oday u noqdo oo ra'si iyo madax u noqdo waxa keenay wax weeye xasad baa sabab u ah xasadku waa midka keenay quraanka kariimka sidoo u tilmaamay ilma yacquub nabiyullaahi yacquub calayhi wa ala nabiyina salaatu wassalaam inay walaalkood u tashadaan yuusuf calayhi wa ala nabiyina salaatu wassalaam inay u tashadaan oo yidhaahdaan aan ceel ku ridno qaarna ay yidhaahdaan may aan dilno oon ka takhallusno yakhlu lakum wajhu abiikum wa takunuu min bacdi qowman saalixiin wiilkan yarkee odayga inaga xigsaday ee odaygu inaga jeclaaday si odayga wejigiisu inoogu bannaanaado wiilkan aan ka takhallusno dilno war mayaynaan dilin aan ceel isaga ridno wixii qaadanaya ha qaatee wa takunuu min bacdi qowman saalixiin hadhowna haddii waa toobad keeni doontaano dembi dhaaf baad ilaahay weydiisanayaan dib baad ka hagaagi doontaan maxaa ku kallifay walaalkood inay ceel ku ridaan ama dilkiisa maagaan waxaa ku kallifay xasad odaygaa jecel wuu naga jecel yahay sidaas daraaddeed seebuu nooga jeclaan karaa xataa aabbahana waa khaldan yahay odaygu xataa waa khaldan yahay meeshaasay la martay waa xasad xasadku waa khatar oo waa midka nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh dabba ilaykum daa'u lumami qablakum waxaa idiin soo tukubay oo idin soo gaadhay cudurkii ummadihii hore wuxuu nabigu sal alay wasalam alxasadu waalbagdaa xasadka iyo isnacaybka isnacidda la isnaco wuxuu nabigu yuri sal alay wasalam hiya alxaaliqa waa midda xiirta حسد هدو مر ميشا صوغلو وي حيري معي حيرتا هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين بنبي صلى الله عليه وسلم مرة هي تنتي حيرتا لكن دينكو حيرا بنبي صلى الله عليه وسلم عليه حسد ميل هدو صوغلو دين إيه الدنيا بوا حيرا توا ودمات مشاس درسيga aynu ka faa'iideysanay ee koobaad waxa weeye
khatarta uu leeyahay xasadku xasadkana waxaa ka dhasha baqi xadgudub baa ka dhasha dulmi baa ka dhasha dil baa ka dhasha xoolo la xalaalaystaa ka dhasha furuuj la xalaalaystaa ka dhasha in ayna waxbaba ku xidhinba ood wax walba adigu isla rabto cid kaloo dhan aan waxba la rabin dadka inaad ugu sarraysan rabto sid bursi inaad hesho rabto anaani noqoto waa xasad waana midka ina hayo waay meel fog ba ha u doonin midka ina haya ee ina baabi'iyey ee dhulkii Soomaaliyeed iyo deegaankeedii eber ka dhigay dawlad dunsaday oo dalkii cunay oo waxba reebin oo ummadii qaxiyay waa xasad haddii wax la isu ogolaan lahaa ood ogolaan lahayd in wax lagaga roonaado wax lagu dhaamo wax la qaatood ka samirto u dayso iska qanacdo wax badan baa dhismi la hagaagi lahaa laakiin marka tiraado girgirkan haysta ama hal isla kufo ama hal isla fuulo laakiin wax la kala dambeyn leeyahay ma jirto waka xasadku marka meel uu galo waa dambaaburo wax uu reebaya ma jiro dambas iyo gelgelin buu kaga tagaya qodobka isaga ah waa darsiga duruusta ugu muhiimsan ee aan ka qaadanayno qisadaasi labada wiil ee aadam uu dhalay calayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam ay noo faa'iideynayso waxa kamid ah oo la dhihi kara cibrada labaad iyo darsiga labaad waxa weeye amalka aqbalkiisu waa qadar ka ziyaadsan amalka samayntiisa shuruud buuna leeyahay inaad amal samayso oo ilaahay tabaaraka wa tacaala daaca ugu dhawaato macnaheedu ma aha in laga aqbalay dad badan oo daaca samaynayo amal samaynaya ayaa amalkooda la soo diidaya sidaas daraadeed ba amalka aqbalkiisu uusan samayn kaliya ahayn oo u baahan yahay shuruutul qabuul in amalkii aad ula timaado qaabkii iyo shuruudii ilaahay kaaga yeeli lahaa tabaaraka wa tacaala laba nin oo walaala oo qurbaan wada gudbistay ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala midna uu ka aqbalay midna uu ku soo diiday markaas haddana waa la tacliiliyo kii laga aqbalay maxaa looga aqbalay inma yataqabbalu Allahu min almuttaqiin waxa keenay in laga aqbalo alla ka cabsi waxa laga fahmayaa kan laga aqbali waayana in laga aqbali waayo waxa keenay alla ka cabsi baan ku jirin alla ka cabsigaas culimadu qaar kood waxay leeyihiin alla ka cabsiga caamka bay ku fasirayaan laakiin mufassiriinta qaar kood baa ka fiican oo waxay leeyihiin waa alla ka cabsi khaasaho ninkaasi shirkigii amalka aqbalkiisa diidi lahaana uu ka fogaaday oo mu'min muwahhid ah laana haduusan iimaan sax uusan jirin amalkii lama aqbalayo sidoo kale to amalka ikhlaas ilaahay dartii buu u sameeyay laana haduusan ikhlaas jirin lagama aqbaleen midda saddexaad ee qurbaanku ilaahay u gudbisto oo ugu dhawaaday dariiqadii wax lagu aqbali lahaa buu waafaqsan yahay iyo sunnadii iyo dariiqii saxda ah saddexda sharti markii laga helo buu amalku marka maqbuul yahay iimaan saxiixa iyo tawxiid shirki la'aan iyo amalkan ilaahay dartiina aad u samayso iyo inaad sunnadii iyo dariiqii nabiga sallallahu alayhi wasallam ku samayso inma yataqabbalu Allahu min almuttaqiin shuruuta saddexda marka la timaada alla ka aqbalay aqbalku marka waa khaas sidaas daraadeed ayaa anbiyada waxa ku hayn jiray walwal iyo walbahaar ilaahayna ay aad u warsan jireen tabaaraka wa tacaala weydiisan jireen inuu amalka ka aqbalo nabiyullaahi ibraahim calayhi wa ala nabiyina salaatu wassalaam iyo ismaaciil labadaba markay kacbada dhisayeen alla wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala wa id yarfa'u ibraahimu alqawaa'ida min albayt wa ismaaciil rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim alla naga aqbal kacbadii bay dhisayaan baytkii ilaahay bay asaaskiisii taagayaan amal khayr ay ku mashquulsan yihiin waa laba rasuul oo waa laba nabi haddana maca dalika waxay leeyihiin allah naga aqbal الله نجا أقبل بيليه عمل كان خير كالله نجا أقبلكم مركب مسألة سهلا ما أوها وأنا عبسيدة كنت لدوني إن الروح كستو مسلم كنت تسيد حديث النبي كسوان صلوات ربي وسلم كسوان وتلبام يو آية القرآن كنت في سورة المؤمنون
الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون مؤمنين الصفات كودا مركو ألا شيء وحا كمدة المامه هذا وحا أي سين يام بي سيان وحي بحين يام بي بحيان خير كوي لي مادان أيقو إسلامركا هدنا قلوب تودو أي بقيسو وقلوبهم وجلة ويتكنيا وانا بقيا ويصدقيسنيا وانا بقيا ويحجنيا ويبقيا دين تيفافينيا وانا بقيا خير كيف إلا إيمانيان إسلامركانا بقدين بقلبي قوضا كجرت الله تبارك وتعالى تلمان تاسوس عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بآيات معناك لأفهنتو النبي قوي ديسي صلوات ربي وسلام عليه سيدا قلت المام يا حديث كإمام الترمذي غير كي صوص صارين والنبي صلى الله عليه وسلم وحي تير الرسول إلهي آيات والذين يؤتون ما آتوا آيات إيضا هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل مروحة وحضية زيني سنية خمرة عبية هدنا بقيا روح انتو وحلي مادو او وحسيو حدنا بقدينتو كجرت مددك معاصيده iyo dunuubta galaya ee ka baqaya in loo qabsan doona ma kuwaas ay aayadu ka hadlaysa markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam la ya bint as-siddiq ma ya siddiq gabadhiisii qolada laga ma hadlay aayadu kuwa kuma saabsana walakinnahum alladhina yusalluna wa yasumuna ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم وكوا تكنيا أو صوميا أو صدقي سنيا إسلام مركانا كبقيا إن لقى أقبل واحد وفيرسد ضاعات بيكون مشغول سيه أيقو ضاعات ككل حشرة هذا قلبي جوده وحى كبو وحده ترى ما لقى أقبل دونا إلهي مكايلي دونا من سوالو جوسو علين دونا والبهار كودو هالكاسو بدين تا iyada waxa khilaafsan dadka qaar koodo amalkii haday sameeyaan ba iska faraxsan ba wallahi maanta shantii salaadood waan tukaday waaba faraxsan yahay waraad faraxdeeda waa khayr laakiin shantii salaadood xagee aadeen ama ina meeshan ba dhaafin ba allaba inay xaqiisa jirin soo ma dhacay sadaqadaad baxsatay iyo xajkii iyo amalkii taasi maxay keenaysaa waxay keenaysaa marba hadii amalkii aad sameysay aqbalkiisa aadan hubin oodan garanaynin ma laga aqbalay mise laga ma aqbalay cabsidaasina ay kugu jirto in aad marka amalka badsato aadna wanaajiso dadaasho saas daraadeed maxaa laga dambeeyay ulaa'ika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun ruux mar haday baqdin ku jirto siyaadin iyo qurxinba waa isku daraya sida salafka qaar kood laga sheego ninba wuxuu dhigi jiray hadaan ogaan lahaa hal salaada in ilaahay iga aqbalay hal salaada ilaahay inuu iga aqbalay hadaan ogaan lahaa waa saas waa marka waxay keenaysaa oo ka saaraysaa qalbiga wax la yiraahdo ujbiga iyo ismahadinta iyo ruuxa amalkiisu inuu la weynaado ila aad midhaha amalkaaga goosatood aakhira tagtood ilaahay hor tagto waxan aad sameynayso meel uu ku dambayn doono meel uu jira iyo si uu yahay Allahu a'lam sooma marka badso oo dadaal waa ayadaasi waxaan dhihi lahaa darsigaasina waxay kamid yahay duruusta meesha laga faa'iideysano inma yataqabbalu Allahu min almuttaqin qurbaanka iyo amalka iyo taacada aad sameynayso waan uun sameeyay hadhiine sidii lagaaga aqbali lahaa iyo qaabkii lagaaga yeeli lahaa iyo shuruutii lagu aqbali lahaa inaad ku dadaashaa la doonaya waana in badan quraanku uu tilmaamayo يعني وحوي ليبلوهم أيهم أحسن عملا حسن العمل بمعتبرة عملكو إنو بدنيا هي شرعات واحد بدنكم أحد مركو بدنانتي سوحي معنى لهذا هي مركو وناق للصعود لكن هدوسا وناق للصعود عبرده وحوي وحسن العمل عمل كان إنو هجاك سيهي هبير هذا وشرعات وافق سيهي وشروط دي أقبل كلاجه لي كاسا مهم إن الحوج صارتنا لو باهي أما أصدقوا هذا جرنين إن ماشوا سارين هيبة بدين تلا يسكبدي جاي معنا بدل مركب مش شيء سمر هذو قالوا حسين هيو وصل صح سنين وحكى له تو معناها صدق هذا مع عبرة الصدق هذا ندرسي كفايدة سنين إنه ويا هي أما قصة كفايدة سنين
laba shakhsiyadood baa qisada ka muuqata oo cajiib ah shakhsiyadii waa ruux saa'il ah oo weerar ah oo yani dhiiran jarii ah oo khabiis oo aad u xun oo aan waano iyo wax sheeg midna ayna waxba u taraynin keliyata un argooso keliyata un qariisadaada dharji ciil bax indhala'aan iyo dhagala'aan shakhsiyad noocaasa qisada waa ka muuqataa shakhsiyadda labaad ee qisada ka muuqata waxa weeye shakhsiyad saalix ah oo is-ilaalinaysa oo xisaabtankiisu aakhare u badan yahay oo tilaabaduu qaadayo u miisaaman tahay oo maxaa maslaxa maxaase mafsada way u miisaaman tahay oo aakhiradiisu adduunyadiisa kala weynta labadaa shakhsiyadoodna qisada waa ka muuqata waana labadaa shakhsiyadood ee matalaya ibni aadamku labada dariiqe uu kala hayo waay ruux waa ruux xun oo wax kasta haddii la yeelayo si walba hadduu yeelo xumaanta lagama celin karo waa dhiiran bal u fiirsan ninkaa isaga ah markuu ku yidhi la aqtulannaka walle waan ku dili buuri waan ku dili bal walaalkii inta uu la maray fiiri wuxuu ku yidhi warniyo maxaad igu dili sabab aad igu disho meesha ma taalo innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin aqbalka hadday tahay waxaad igu dilayso allah iskale anigu ma lihi sabab aad igu disho meesha ma taalo ma anficin wuxuu ku yidhi lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibaasitin yadiya ilayka liaqtulak haddaad gacanta ii qaaddo anugu gacan kuu qaadi maayo niyo kula dagaalami maayo waxba uma tarin wuxuu ku yidhi innii akhaafu allaha rabba alcaalamiin war ilaahay baan ka baqayaa waa nooc sarbeeb uu isaga ku waaninaya wey war ilaahay baan ka baqayaa alla ka baq waay waxba uma tarin dhiiggaygu waxba kuu tari maayo walaalow hay dilin ilaahay ka cabso alla ka baq buu ku yidhi waxba umayna tarin wuxuu ku yidhi oo haddana ugu daray innii uriidu an tabuu'a biismii wa ismika haddaad sidaa yeeli weydood joogi weydood u disho dembigayga iyo kaagaba adaa la laaban doono intaa muuna ugu daynine fatakuuna min asxaabi nnaar buuri naarna waad geli muusan ugu daynine wadalika jazaau aalimiin buuri dadka wax dulmee wax dilee wax khariba abaalkooduna waa saa intaasoo waana markuu isu daba dhigay oo la hadlay oo u celiyey waxba muusan ku qaadan فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ابن آدم كقار نوع عسى كتير مرك ولله درتي يقول ده إلهي وحقوته له إلهي حقوته ورني هو الشهادة هي الشهادة وحقوته ورمحان كلام مقنع ما يوان قدلي ورمحان السبب ونويشك ما يسولان بان قدلي war soo naar iyo janno ma jirto janno iyo naar aduu wax ku fal Soomaaliya kaliya waxa uu cad inuu dhiigan galo dhiigan inuu galo waa noocyad hadda aad iyo aad ugu badan bulshadeena ku badan waa hatta kuwa wadaadnimo sheeganaya arki maalin waxaan arkahay qolo nin baa la soo qabtay waa la dilaya ninku wuxuu u ashaadanaya wuxuu leeyahay warnimayo warin mujaahidana war ilaahay dartii baan u dagaalami jiray war xamaaradii baan la dagaalamay war wadanka dadka ka saaray baan ka mid ah war walaalayaal waxay dilina loo maabeeyay akhiiran markii dambe la soo qabtay war ilaahay dartii ugu daayay ilaahay dartii wax ku dartaa leeyahay أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هكو أنفع ذا لليه هكو أنفع ذا جرأة يرنان ينحرس الضراء يدين حماء ماشي قدام بيسوى ماشي قدام بيسوى نوعيات كاسها مركب بني آدم ككوتشرو والنوعيات كالله قلت لك علي أدون كمركب تشوغانا
in qaab looga shaqeeyaa jirto oo nidaam zajriya loogu talagalay aqli iyo cilmi iyo wax sheegin iyo waano ma anfacdo aakhara markay tagaana Allah tabaaraka wa ta'ala sidoo ku sheegay hasbuhum jahannamu waxa deeqi kara ee ku filan waa jahannamu marka ninkan qamaamaya ee dhiiran ee la kari laayay si walba loola hadlay ee dhiiga walaalkii ku qamaamaya wax kala ma aha waan ciil bixi un waay inaan ciil baxan doonaya la aqal wala akthar balse ninkan kala u fiirso ninka walaalkii ee ka gardaran ee dilahaya dhiigiisa ku socda oranayo muxuu ahaay warniyo gacan ku qaadi maayo iskana ka celin maayo haddaan iska ka celin waa iska ka celin kara laakiin ilaahay baan ka baqaya naar iyo aakhiraan ka baqaya bal ninkan u fiirso wuxuu u xisaabtamaya adduunya waana maalmo ninkii joogay iyo ninkii tagaba waa maalmo laakiin xisaabtanka weyn iyo arinta muhiimadda leh waa aakhiradaydaan u dib dhiganaya gacanna ku qaadi maayo idil saadoniyo si alla saadonto yeel labada nooc oo insaanka ku jira ayay qisadu bixinaysaa tafsiirkeedu cibarka laga duruusta laga faa'iideysan ayay kamid okay waxa kamida oo qisada laga faa'iideysanaya oo fawaa'ideeda kamida waa faa'iidada aan doonayo inaan ku soo xidho insha Allah ta'ala qaybaha kale habeen damaan u dib dhiganaya waxa kamida fitanku markay dhacaan oo muslimiintu dhiigooda dhexdooda banaystaan oo ay qabaa'il isu laayaan oo gruubiyo iyo kooxo isu laayaan oo qaybta kale dhiigooda banaystaan xaaladaasoo kale darsi baa ku jira qisada tilmaamaya ruuxa muslimka ah qaabku ula mucaamaloon lahaa arrimaha noocaas oo kale ama sidaa markay wax u dhacaan siduu u waajihi lahaa fitanka makhraj kamida makhaarijta fitanka ayuu qisadu tilmaamaysa axaadiista nabiguna ay tilmaantay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi Saciid ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu warda markay dhacday fitnadii Uthman ibn Affan lagu dilay waxa soo aroortay aatharta qaarkood in muxuu ahay ay saxaabada qaarkood dhihi jireen aayada ruuxii ugu horeeyay ee ku amal fala Uthman ibn Affan buu ahaa صوت وحوي عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه نبي محمد با اوسي شيغاي ان لا ديلي دونو صلى الله عليه وسلم sababta lagu dili doonana inay tahay kursiga iyo khilaafada muslimiinta ka tanaazul in loola imaan doono nabiguna wuxuu kula dardaarmay ha ka tanaazulin qamiis ilaahay ku xidhay hadday rabaan inay hadday ka codsadaan inaad siibto ha siibin buu nabigu sallallahu alayhi wasallam Uthman niman thuwar ah oo kacdoon sameeyay oo mutamarridiin ah oo khawaarij iyo balaaye iyo kuwa balaaye laga soo dhacay wada socda baa xafiiskiisii Madiina ku soo weeraray Uthman markaa saxaabo far badan baa la joogta magaalada Madiina saxaabadii waa u yimaadeen oo waxay yiraahdeen waxaan rabnaa nimankan thuwarta diin laawayaasha badan ay ku jiraan inaanu iska difaacnaanu rabnaa dagaal la galno Uthman wuxuu yiri aniga dartay Nabi Maxamed ummadiisa dhiigeedu isugu daadan maayo sidaas daraadeen haddaan idinku leeyahay amar inaad amarkayga ateecdaana waajib ay idinku tahay guriyihiina aada buur hana idifaacin farahayga qaada aniga nimanka isu kana daay hadday cid dilayaan aniga hay dilaan laakiin Uthman difaaciisa ayaa dhiig muslim isugu daatay oo saxaaba isu laayeen ama saxaabiyo niman kale isu laayeen la dhii maayo iska taga sidii baa laga tagay amiirkii muslimiinta way amar buu ku leeyahay amarkiisa bay qaateen waa la iska tagay thuwarti Uthman bay u yimaadeen Uthman wuxuu ku yiri maxaad igu dilaysaan wuxuu yiri ruuxa muslimka ah waxa loo dilaa inuu naf dilay waligay naf ma dilin buu waxa loo dilaa inuu isagoo guur u horeeyay zinaysto waligayna ma zinaysanin buu waxa loo dilaa markuu islaamay kadib inuu ridoobo diinta ka noqdo mana ridoobin buu
nebi maxamed intaan la soo joogay waxaan islaamka u soo qabto maxaasin fara badanoo buu u sheegay wixii oo dhan way ka dhagaysan waayeen cuthmaan ibn cafaan meeshii bay ku dileen radia allahu tacala canhu wa ardaa markay dileenna way iska noqdeen fitnadii bilaabatay baa halkaa ka furantay waxay yidhahdaan marka lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii ma ana bibaasitin yadiya ilayka liaqtulaka inii akhaafu allaha raba alcaalamiin ninkii ugu horreeya saxaabadee ku dhaqma cuhmaan buu ahaa bay dhahaan radia allahu tacala canhu ardaa sacd ibn abi waqaasin radia allahu tacala canhu ardaa fitnadaa cuhmaan lagu dilayay markay dhacday ayaa wuxuu yidhi rasuulka sal alla alay wasalam ayaan joogay buu ihi oo leh inaha satakunu fitnatun alqaacidu fiiha khayrun min alqaa'im waalqaa'imu khayrun min almaashi waalmaashi khayrun min assaaci nebigu wuxuu yidhi buu yidhi fitan baa dhici doona waa dagaalada muslimiinta dhexdooda fitnadaasoo ruuxa fadhiista dhexdeeda uu ka khayr badan yahay midka taagan ka taaganna wuxuu ka khayr badan yahay midka yacni waxa weeye dhex socda midka dhex socdaana wuxuu ka khayr badan yahay midka dhex ordaya markaasaa waxaan idhi buuri rasuul ilahi warkaa markuu nebigu sheegay ayaa waxaan idhi buuhi afara'ayta in dakhala calaya beytii fabasata yadahu ilaya liyaqtulanii rasuul ilaahay ou ka warran haddii inta gurigayga uu igu soo galo ninkii horarka ahaayee weerarka ahaayee i rabay inuu i dilo gurigayga hadduu igu soo galo inuu i dilana uu doonayo maxaan sameeyaa nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam kun kabni aadam waxaad noqotaa ina aadam oo kale noqo buu nebi uri sal lla alay wasalam maxaa laga wadaa ina aadamkii la dilay oo kale noqo ee kii gacan ku dhiiglaha ha noqonin isdhiib ha ku dilo dembigeega iyo kiisana hala laabto abu darin alkhifaari sidoo kale xadiidka abu daawuud iyo tirmidiyaa soo saaray abu darin alkhifaari ayaa wuxuu yidhi nebiga sal lla alay wasalam ayaan gadaashiisa waxaan saarnaabuu dameer uu nebigu xagga hore ka saaranya baan anna gadaal ka saarnaa markaasaa wuxu uhi yaa abaa dar ara'ayta in asaaba annaasa juucun shadiidun laa tastatiicu an taquuma min firaashika ilaa masjidika kayfa tasnac abu darow ka warran buu yidhi dadka haddii ay ku dhacdo gaajo daran oo aadan keri karin inaad gogoshaada ka kacdood masaajidka u kacdo seed yeeli hadday intay gaajo dhacdo gogosha aad ka kici weydo masaajidkana gaadhi weydo maxaad yeeli doontaa buu ku yidhi abu darow markaasuu wuxuu yidhi allahu warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisaa garanaya ii door rasul maxaan sameeyaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam tacafaf iyadoo gaajo loo dhimanayo isdhowr xaaraanta iska ilaali shubahaadka iska ilaali xataa haddaad gogoshaada gaajo kala kici weydo ood masaajidka la gaari weydo gaajo darteed dadkiina dhibkaasi haysto xaaraanta iska ilaali buuhi tacafaf waan baktinayaa yani muxuu ahaa maxay dhihi jireen war bakti looma cuno soo waan baahanahay bakti looma cuno tacafaf buu nabigu ku yuri sal lay slam wuxuu yidhi yaa abaa dar ara'ayta in asaaba annaasa mowtun shadiidun yakuunu lbeytu fiihi bilcabd ka warran dadka hadday dhimasho aad u daran ku dhacdo oo ruuxa gurigiisiiba uu qabri u noqdo meel kaleba lama gaadhsiin karaba baloodkiisii iyo gurigiisiibaa ruuxii lagu aasaya maqaabirtii iyo xabaalaha lama geyn karo ka warran seed yeeli buuri kayfa tasnac wuxuu yidhi allahu warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisaa garan seen yeelaa rasuul ilaahi nebigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam isbir sabir adkayso goorta la baaba'ayo oo dadka geeridu ay wada saamayso saaqdo sabiroo adkaysuu ku yidhi haddana wuxuu yidhi yaa abaa dar ara'ayta in qatala annaasa bacduhum bacdan abuu darrow ka warran dadku hadday islaayaan oo dhexdooda seefta iska waraabiyaan oo iyagu islaayaan yacni xataa taqriqa xijaaratu albeyti min addimaa kayfa tasnac yacni waxa weeyaan dadku intay islaayaan oo gacanta laysu qaado ilaa dhulkii iyo dhagaxaantii ay dhiig ku maanshoobaan oo dhiiggi intuu meel walba daato dhagaxyaanshii uu dhiiggu qariyo seed yeeli buuri koox koox qabiil qaliib gobol gobol degmo degmo markii saa laysu galo seed yeeli buuri allahu warasuulu aclam buuri rasuulkii allah iyo rasuulkiisaa garan seen yeela rasuul ilaahay
nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam uqcud fi baytika wa aghliq alayka babaka gurigaaga fadhiiso iridana soo xidho gurigaaga fadhiiso banaanka u bixi ha waraysan hana raadinin ha doondoonin ha ka qayb qaadanin ha dhagadhagaynin gurigaaga gal iridana soo xidho wuxuu yiri fa illam anzil ka warnaday arintu ka badartaba oo sida ana ku badbaadayn wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam fa'ti man anta minhum fakun minhum meelaha dagaalo ka socdaan iyo magaalooyinka intaad ka tagto dadkaagi aad ka dhalatay iyo dhulkay degi jireen iska aad ar masha war markaas wuxuu yiri fa akhudhu silahi meesha markaan tago oo reerkayga aan dhex tago hubka miyaan qaataa markaa qorigayga iyo seeftayda waxayga ma la baxa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fa idan tusharikuhum fima hum fihi hadaawad qori qaadatood hubkii qaadato de waxay ku jireen baad kala qayb gali sooba reerka difaacoodi iyo weerarkooda iyo waxooda soo kala qayb gali maysa ila nin hubaysan baad warkaalay dagaalka wax ka galo reerka difaac baa lagu dhig marka waad kala qayb gali buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri maxaan sameeyaa marka maxaan yeelaa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam idha khashita an yarda'aka shu'a'u as-sayfi فألقي طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك وحيري هل قدلو رواية قال وحي لذا آدم لبدي ويلي أورد علي متكودي خير كبضنا النقو إلا الدلي هداد كبقض السيفة وكقود دليو شعاع عيدا آدو أتكي سوى إذنه ood marka ka yaabto inaad gacan qaado ilaa nin seef lagu soo wado gacan qaadi shucaaceeda hadaad u dul qaadan weydana maradaada wajiga saar buuri ha ku dilo dambigaaga iyo kiisaba isaga la laabanaya darsigu marka waxa weey xilliga fitanku ay dhacaan oo muslimiinta dhiigooda isku fakadaan oo group iyo qabiil isu laayaan sida xaalka maanta ina haystay muddo bayna soo haystay xilliga isaga ah fogow waxaadna noqotaa wiilkii la dilay aadam ee ka wax dilay gacan ku dhiiglaha marnaba ha noqonin sidaas uu nabigu ku taliyay sallallahu alayhi wasallam xaalada iyada ah ahadiistani mawdic bay leeyahay ahadiista ah man qutila duna malihi duna irdihi duna diinihina mawqic bay leedahay ahadiistana mawqic bay leedahay أحاديثاً إسليب أو هل قدلنا مناسبات بيلاده أحاديث استفاع سيد حديث كنين كي نبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كورن نين أنيجا يدونه حولها يجا إنه قاتل دونه حولها كعشوي كورن هدو يدلو شهيد بات كورن هدان دلو نار توجليه وكا إسليب محله أروه حالة ذاك الدول حالة المسلمين توحدوا اسكوفا كذا وفتن نقضوا حالة عرب الربا انت كفوغان كرتين كفوغا الربا حتى ورئيسي جديه دغدغين تيدي رادين تيدي محل يريه maxaa soo yeeray iyo ninba ninku ka fogiyo ka dhagalaaya yu ka fayo yahay xillidaas oo kale ninka iska ruubaanka raahibka ah waxba aan danayninba ee uu dantiisa iyo reerkiisa iyo ilmihiisa iyo waxooga ganacsigiisa yaqaan laakiin siyaasad iyo dhagdhagaynteed iyo balaaya islaysay reer ba ismaray iyo balaaya isjiidadaas aan waxba ka warahayn ninkaas ugu fayoobi badan waa ka hurdawa ninba meel bay u joogtaa marka ka waxooga soo yara kacay yara fadhiistay kaas uu ka daran yahay ka yara istaagay ee fiirfiirinahay uu ka daran yahay midka waxooga dhex ordahay bal waxba la keeni karaa uu ka daran yahay midka ka sii ordaya isagu dhex taagan waa ka sii daran yahay kolba intaad u geysatay ku geysano shan markaad la gasho 10 kula gali markaad shan la gasho 10 kula gali man istashrafa laha tastashrifu midu nabigu sallallahu alayhi wasallam amma xaaladan isdifaac lagu leeyahay waa xaalad khaas oo waa ruux adiga ku doonaya waa adiga kugu socda haduu adiga kugu socdo iska xal xaaladan laakiin waxa weey qabaa'il iyo deegaamo iyo jabhado iyo kuraas iyo masaalix iyo wadan la isku leynayo waa fitan reerkiisa inuu wadaadku ku daliiliyo xoolahaaga hadaa difaacato shahiid baa tahay kaale dhulka reerka difaac
yuusan ku lugoynin dhul aad leedahay ma jiro ha ku dhimanin dhulka aad leedahay waa dhulka muslim waxaad ka xigtana waa gaalka laakiin muslim baan dhul ka xiga oon ka difaacanon ku dhiman fitnaad ku dhimato kamali dhulka aad leedahay waa beertaadii iyo gurigaaga ninkii ku soo raadsada oo adiga uun ku raadinaya dan kale aan lahayn iska celi mawqica xadiisku kaa waay laakiin dhul baanu difaacanaynaayoo annaga waana la soo maagayo ree hebel baana yidhaahdaayo dhul baanu degnaayo ree hebel baan ugu soo socdo waanu iska celinaynaa qoladaasina waxa weeyaan man qutila duuna maalihi buu daliishan kana wuxuu daliishan man qutila duuna maalihi axaadiista ugu nasiib xun buu maanta ka mid yahay xadiiskaas ugu nasiib xun reer walba maalinkii la galo waa qolaa waxay ugu yidhaahdeen يعني الشيخ أنك ديجان كنجي بأنا لو صور أنا وحسك علي إنه صاحب مليء ضدك نصور رأي كور رمان كوره هذا أنت أتكأت كاتان وود أدهشان سومالي ودن قفصن كرتان بديجان كينا تكوي كانيسان ما يدوان وضع قفصني إن أنت قفصن كرنما خلاص صورة بسيطة خير والبمالك وتبر دريه من قتل دون ماله هو مالك وحوق بدن يهين ورقوا اسبدليه marka talaacuka nusuusta lagu sameeyay weeye nusuustu mid walba mowqic bay leedahay nusuusta dafciga ku soo aroortayna mowqic bay leedahay iyo xaalad khaas ah nusuusta ku soo aroortay istislaamka iyo cararka iyo ka fogaanshuhuna mowqic bay leedahay insha Allah ta'ala duruustii qisada aan ku joojina biidinlaahi tabaaraka wa ta'ala wixii noo laaban ee dambe iyo يعني دروس انت هذه كلام عن كذا بإذن الله تبارك وتعالى هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بذي الطبيعة أبهجا